madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Mudan Ismaaciil Umar Geele ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada madaxweynaha Soomaaliland Mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo saaka ku yimiday dalkan jamhuuriyadda Jabuuti booqasho hawleed oo gaaban waxaa daba ku soo dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland garoonka caalamiga ee diyaaradaha dalkan Jabuuti ra'iisul wasaaraha dalka Mudan Dilayta Mohamed Dilayta waxaana u joogay wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta Mudan Cabdi Xuseen Axmed madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliland Mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa isla soo qaadeen xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya labada dhinac madaxweynaha Soomaaliland waxa ku weelinayay booqashadani ooridiisa Marwo Amina Waris Sheekh Mohamed wasiirka arimaha gudaha Mohamed iyo wasiirka arimaha gudaha ee Soomaaliland Mudan Mohamed Nuur Aare sidoo kale waxa la socday oo ku weelinayay booqashadani wasiirka arimaha madaxtooyada Mudan Xirsi Cali Xaaji Xasan kadib waxa aan wareysanay madaxweynaha Soomaaliland Mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo isagu noo sheegay ujeedada booqashadani hawleed oo ku yimiday dalkan jamhuuriyadda Jabuuti ee gaabnayd noocan kala dal intaasoo dawlad isugu timid oo noocan oo kale kama dhicin meel laba hore uga dhicin shirkan waa shir muxuu ahaa dunidu in badan isugu imanayso waa shiran dawladda martiqaad kalena aan muxuu ahaa cid nooga timid aan ka wada hadalay wada tashi balaaran ka yeelanay waa shiran oo aragnay inaanu madax banaanadayada iyo muxuu ahaa go'aansitaanka iyaga inaanu waxba yeelaynin waa mid aanu ku tala jiro hadii ilaahay nafta noo daayo inaanu qadiyadayada u bandhigno dunida iyo caalamka fursad noo siinaya marka sidaas aanu qaranimo ugu tashanay inaanu ka qayb galno insha Allah ta'ala arrimaha Soomaaliland markii ay abuuratay Soomaaliya ciidan ba qasbin Soomaaliland waxa lagu heshiis dadka degaa waa dad isu yimid bay ahaayeen burca qoobiyo shirka lagu wada saacid heshiis lagu wada saacid la soo noqdo madax banaanidii Soomaaliland ay lahayd waqtigii isticmaalka ka hor waqtigii Israaciil ka hor sida wax heshiis lagu ahaabo ahaa intaas oo dhan dawladdaasi waa jirtay maantana hadii wax khilaaf iyo dadka qaarkood ay yimaadaan wax gocdaan iyo gobolada iyo dadka qaar diyaar bay dawladdu u tahay inay kala hadasho aanu ka wada xaajoodno laakiin Soomaaliland iyo xuduudadeeda iyo qadiyadeedu waa loo taabtaa kadib madaxweynaha Soomaaliland Mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa isla maanta ka ambabaxay garoonka caalamiga ee diyaaradaha dalkan jamhuuriyadda Jabuuti waxa daba ku sii sabootiyay oo ku sii dhaweeyay madaxweynaha Soomaaliland Mudan Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo garoonka caalamiga ee diyaaradaha dalkan jamhuuriyadda Jabuuti wasiirka dhaqanka warfaafinta warisgaarsiinta qaabilsan boosaha iyo warisgaarsiinta Mudan Cabdi Xuseen Axmed